weerarkii ka dhacay magaalada Muqdisho 17 bishan December abaar 12 saqda dhexe dadkaasi waxay ku sugnaayeen xarunta xisbiga wadajir sidaas lamida ayaan uga tacsiyeynaa mas'uuliyiinta ama madaxda xisbiga wadajir si guudna waxaan uga tacsiyeynaa ummadda Soomaaliyeed waxa kale oo tacsiyeynaa oo si guud ugu tacsiyeynaa ummadda Soomaaliyeed wana tacsiyeynaa xadgudubkii lagu sameeyay dastuurka dalka iyo shuruucda kale dalka runtii waxay ahayd xadgudubkaasi mid aan ka yarayn yani ama aan kaba miisaan culusan dhihi karaa xadgudubyo dalka ka dhacay muddooyinkii la soo dhaafay waa sax runtii dad naga dhintay laakiin iyana waa xadgudub aad u weyn in dastuurkii dalka iyo shuruucdii kale dalka lagu xadgudbo laakiin waxa haddana iyaduna kasii naxdin badan oo kasii argagax badanba in madaxda dalka ay ku xadgudubto waxaan ogsoonahay madaxda filla Soomaaliya waxa lagu doortay oo sharciyada ay haystaan lagu siiyay waa dastuurka dalka iyo shuruucda kale dalka kuma imaan runtii qoryo ay qababacay warqada ay dalka ku yimaadeen waxaana aad u haboonaan lahayd runtii inay xasuusnaadaan ilaaliyaan xafidaan habkii ay ku yimaadeen wada ogsoonahay inayaan ku imaanin dalka maxaa la dhahaa awood ciidan ama qoryo iyo wax la mid ah waxa xusid mudan in dalka Soomaaliya aan hadda joogin ama ayaan jirin cid xiisa qabta in ay xukun ku raadiso xabado iyo qoryo iyo ma garanaysaa waxaan haboonayn ummadda Soomaaliyeed hore u soo aragtay wixina soo maray iyo waayihii aan soo aragnana in wuxuun aan ka faa'iideysan ayaa haboonaan lahayd filla Soomaaliya inay aaminto ama ay ku salayso siyaasadeeda haddaad iga aragti duwan tahay waxaad astaahishaa in lagu dilo waxaan xaq u leeyahay inaan ku xiro waxaan xaq u leeyahay inaan xukumo runtii waa nasiib dar mana ahan shacabka Soomaaliyeed shacab ahaan iyo siyaasiyiin waxay aqbali karaan mana u malaynayo in qarniga 21aad ay tahay miiniska ama habka ugu haboon ee lagu raadiyo xukun siyaasadeed sida saaxiibadii iga horeeyay halkan ka sheegeen waxaan uga digaynaa madaxda Soomaaliyeed inay adeegsadaan ciidamada amniga ummadda Soomaaliyeed siyaasiyiin iyo shacabba waxa caado u ahayd inay dhanka bidix iska fiiriyaan oo ay ka cabsadaan oo ay dareemaan in cadow ka xigo cadowga waa kuwa la wada yaqaan loo yaqaan al-shabaab laakiin waxa soo korodhay in aan xagga midig qudheeda kalsooni fara badan laga qabo oo laga baqayo ama ma garanaysa ay muuqanayso xadgudubyo ay ku kacayaan hay'adaha amniga ay adeegsanayaan madaxda dalka marka haddii shacabkii Soomaaliyeed dhankii bidixna eegayaan midigna eegayaan ha noqdo shacab ama siyaasi waa runtii ayaan darro ama daahira aan dalka ku haboonayn kuna soo korodhay waxaan uga digaynaa sidaas la mid ah madaxda Soomaaliyeed inay caburiyaan garsoorka waxaan xuquuqaal u nahay inay aad u xumaadeen runtii yani dhacdadii ama xukunkii garsoorku qaaday oo runtii aan aaminsanahay inuu ahaa kan saxda ah laakiin ayagoo aan filaynin in ma garanaysa garsoor hufnaantaas iyo ay ka muuqato hal adeegaasi kolkii ay arkeen waxaan la soconaa inay dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan garsoorka dhexdiisa ama ay aad u caburinayaan garsoorka waliba dadka qaarkii aad loo handadayo laguna cadaadinayo in filla Soomaaliya aragtideeda siyaasadeed lagu dabaqo garsoorka sinaba suurtagal kuma ahan in ay isticmaasho madaxdu hay'adaha amniga oo si qaldan u isticmaasho waxaan sax ahayn sidaas la mid ah inay hay'adaha garsoorka ay ku caburiso inay aragtidooda siyaasadeed ama hadafkooda siyaasadeed ay fuliyaan ama meel mariyaan haddaynu nahay xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiinta kaleba waxay naga go'an shacabka aan metelno inaan ku hadalno codkooda waxaa naga go'an inaan sii joogtayno laabnana la xisaabtanka xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa mar kale in la wada ilaaliyo shuruucda dalka xasiloonida dalka sinaba suurtagal ku noqon mayso in filla Soomaaliya saddex qofood fadhiistaan oo ay dhahaan aragtida saxda ee ugu haboon dalka in lagu maamulo annaga ayaa hayna ciddii aragti kala qabtana waa in la xiraa la dilaa ma garanaysaa la xukuma waxaan aaminsanahay saddexda qofood ee sida aaminsan haddaynan ugu xog ogaalnimo yarayn xaaladda siyaasadeed ama tan amniga dalka Soomaaliya ka jirta ma ahan dadka ugu xog ogaalsan saxna ma aha suurtagalna ma aha inay dhahaan annaga unbaa naqaan dalkan dawadiisa annaga hana loo daayo waa mahadsantiin